bin aadanka dunida ku nool waxaa jira dad mar al markii meel dani ka gasho dantaas ha ahaato mid murugo leh ama ha ahaato mid adiga qaasa oo farxad leh in meeshan in wax loogu qabanayna haddii ay arkaan surco go'aan ka gaaro iska soo afjaro isla dad kale yacni qofkan aan waxba u qabanayn ama qoftan aan waxba u qabanaynin ayaa haddana waqti fara badan ku bixiyaan ayagoo marmarsii ka dhigaan sida tan ma aysan ahayn ama saan ma aysan ahayn يعني maanto dhan way ku soconayaan hadii boqolaal mar negative ee la soo kulmaan xataa qisadan maanta aan hayo ayaa waxa ay tahay qiso argoosi miyaan dhihi karnaa mise go'aan adag ayay leedahay Fatma waa gabar channelku waxaan ku soo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqo ah falogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القارية ولكن زيو إذن الله أنا وعفمات قواء الحمد لله مال والبؤ الدنيا أكجوبتان وحا إذن رجينيها دمانتين إن أعطي عفمات قبطان سود الدبادة ومركلا إيو فيديو عزو فيديو غان أيان مانتا وحن كوفالن قينينا قصة قبر رير مقربية أما دكتورة رير مقربية أنا بطلحنو فاطمة وقبر دكتورة قصة ديت أيان مانتا إذن soo gudbinaya ilaa ay dhamaadka la socdo waxaad kumadiyo dhan ka soo wada dhigtaan Fatma ma ahan qof fudud sababtoo ah Fadumo ama Fatma go'aanka ee qaadatay aniga ziyaa waa mid i cajibiye akid waa mid i cajibiye qisadan Fatma waxa ay dhacday 2004 Fatma waxay u bilaabatay reen qurux badan yacni oo farxad leh reerkeeda iyo ayadaba sababtoo ah Fatma waxay ka soo qalin jibisay isla sanadkaas 2004 doctornimo markii gabdhaha qurux lagu tilmaamo Fatma waxay ahayd gabar aad u qurux badan waxa Allah subhanahu wa ta'ala kumuneystay qurux haba ahaatee wixii sii haysatay hadana dabeecad dadka badana waxay dhahan dabeecada iyo quruxda iyo kan qofka la isku madaro Fatma waxay ahayd gabar iska degan farxad badan yacni aan xanaaq badnayn jabigeeda caadi iska hadana waxay ku takhasustay doctornimo ma ahan gabar fudud waxay deganaayeen xaafad lagu magacaabo shaqiiqa waa in aan wadanka xogaa gobolada aan tagaa ama tuulooyinka sida ay dadku yaqaadeen xaafada ay deganeed ay ka fogaatay waa isla maqrabi waxay tiri marka si aan dadkeyga iyo dalkeyga aan wax ugu qabto waa inaan دكتورنimada يعني meesha loogu baahan yahay aan wax ka soo bilaaba baadiyo kale adiga isla xaafad kale ayay tagtay laakiin isla wadankii ah mar al markay sida u tagtay wixii raasatay shaqo waxayna soo bandhigatay aqoonteeda waa la soo dhabeeyay inta wali waxay ku gudurtaa maalmaheeda dunida ugu farxada badan way soo qalin jibisay waa doctoreso waa qof shaqo doona si ay wax u tarto dadkeeda balse maxaa qabsaday maalmaha kamida ayadoo guri ka soo baxday oo meel kale u socota ay wixii la kulantay shaaracaas oo ah shaarac yani aan dadka wanaagsaneen badana ee iskugu imaadaan ama gabdhaha xunxun oo jirkooda iibiyo kale shaaracaas ayaa waxa lagu magacaabay rabaad ayadoo mareyso ayadiina wax aqoona uma lahan shaaracan laakiin way iska soo martay oo kaliya ayaa waxaaba hal mar ay la kulantay bagaari saarin afartii nin ayaa hal mar albaabada iska soo wada fureen kadibna Fatma waa la dafay markii la dafay gaariga la saaray ayadoo qaylinayso bariyamayso dhahees iska keen nabadgeliya ayaa loo hanjabay kadib waxa la ma aamuse mise aan ku dilnaa ayada markaas dhimasho ma aysan rabin oo way iska aamustay haba aamustee Fatma waa doctoresa sidan ay sheegay doctornimada waxa u sii weheliyay in ay ahayd qof aqliga la saaxiiba kadib Fatma mar alla markii gaariga oo cabaar socday ay aragtay nimankan in uu jixin haba u darnaaday mid ayaa si xoog madaxa ugu garaacay markay hadal maagtane darbaaxadeeda ku dhijinayna aamus way iska aamustay waxay dareentay gaariga in uu laamiga ka baxay xogaa aamoodid in xogaa meel oo bacaad ama caro oo ku soconaayo يعني ميل أنلامي إهان كدي وحي سميسي وح ساعدة ما هي ستو ساعدة ده هي ستونة وجي أي كحرنتهاي أو ما فيري كرتو
kadib waxay samaysay qalbigeeda garaacidiisa in ay ku xisaabsato. hadda waxay bilowday maadaama ay dareentay gaariga in uu meel laamiya ka soo baxay oo meel oo yacni dhul oo nabad caadi ahayn oo ciid ama jaay lagu socdo ee dareentay in ay xisaabsato garaaca qalbigeeda ay waxay ku xisaabinaysaa waqtiga oo inta oo meeshan uu gaariga ku soconayo ilaa uu laami nadiif ka gaarayo. balse laami nadiif maba uusa tegine wuxuu tagay guri meeshaas u dhawaa. kadib marka ay xisaabsatay 562 garaacista qalbigeeda, kadib gaariga istaaji waxaana gudaha loo geliyay guri markaas meesha u dhawaa. inta ay wax xisaabeysay ayuu gaariga istaagay ayadoo isle ma dhaqaaqi doona gaariga mise uu iska taagnaa doona xisaabteedan ay haysato ayaaba la soo dejiyay. waxaan la geliyay guri markaas meesha u dhawaa. gabadhii bartii ayaa lagu kufsaday. hal nin ma uusa kufsan ee waxaa kufsaday 4 nin. waa gabadhii doctoreysada ahayd oo xaafadeeda ugu soo baxday in ay shacabkeeda wax u taro ayuu dhibkaas qabsaday. guriga dhexdiisa intay ku surqaneed wajigu u furnaa, laakiin markii la soo bixinayay hadan wajigeedii waa loo soo xiray. laamigii markuu ku soo dhacayna wax yar kadibna waa laga tuuray gaariga. markii la soo tuuray ay waxay ogaatay inta masaafo oo dhulka uu ku soconay gaariga oo kaliya in uu guriga u jiro oo laamigii laga qaaday imbaaqtii laga qaaday iyo bartii lagu soo tuuray in ay isku dhow yihiin. kadib meeshadii ayay wajigii iska furtay way soo baxday. go'aankii ugu horeey ee qaadatay ma aysan ahayn dhibta ku dhacday in guriga la tagto ee oyso ee dhibtii la ku dhacday ayay waxay la aaday amaanka markaas wadanka ka shaqeynaa ahna askarta. booliiska markay u tagtay ee dhibkeeda u sheegtay waxayse u maleyneen ayay kala kulantay oo ay soo baxday. waxay u timid maxaami qof oo yacni u doodo ayay soo raadsatay, balse wajiga ayuu ka saaray. shaaracaas haddii laga qaatay 3 shay oo kaliya ayaa ku badbaadi karto. asigoo haddana rabin inuu wax u qabto ayaa haddana wixii ay kala soo kulantay booliiska ayuu maxaamigana ay kala kulantay. ma aysan isdhiibin gurigeed ayay imaaday ayadoo yaaban oo amakaagsan ayay waxay go'aansatay. maxayse la soo kulantay? la soc fiidiyogan. Faatmo ee soo baxday 2004 bishii Oktoobar 23 ayuu dhibka ku dhacay. 23kiiba isla dhacdadii kufsiga iyo booliiska ayay isku martay. 24kii maxaamiga ayay la joogtay. 25kiina bartii shaaraca ayay soo aaday ayadoo markaan go'aansatay in booliiskiina wax u soo wadin maxaamina ay yacni ka helin naxariis ayay bartii timid. taxi ayay raacday. taxiga markay raacday waxayna ku tiri markuu socday muddo 5 daqiiqo ayay waxay ku tiri bartaan ka bax sida ayadoo qiyaasayso gaari inuu barti laamiga ugu leexday oo jaayga ka fuulay ayadoo qiyaasanayso ayay taxiga ku tiri bartaan raac. taxiga waa nin la kiristay oo bartii ayuu hore u sii maray. markaas ay waxay bilowday in ay qalbigeeda garaacistiisa xisaabiso, laakiin shalay iyo maanta isku mid maahan. oo shalay qalbigeed xoog ayuu u garaacmayay oo cabsi fara badan ayaa ku jirtay. hadda laakiin waa qof maskaxiyan xisaabanayso. waxay xisaabatay 526 garaaca qalbigeeda ayadoo jabigeeda degan intuu ayuu ku noqon karaa garaacista. adiga alcamo sidii u socotay way qiyaasatay garaaca xiligaas ayay waxay ku qiyaasatay muddo 10 daqiiqo. 10 daqiiqo gaariga markuu uu socday ayay istaajisay. gaarigii ayay iska fasaxday. waxay bilowday in ay meelaha fiiriso. kadib waxay aragtay guri aad u weyn oo meelahaas oo ugu soo dhawaaybo. markay aragtay ayay waxay dareentay gaariga markuu istaagay iyo masaafaha yar oo guriga iskugu jiray in ay ogaatay gurigan gurigii dhibaatada loogu geystay in uu yahay. isla xiligaas gurigii ayay fiirsay. hadda waxay qiyaasanaysaa ama yacni 95% ay maskaxdeeda ku qoranaysaa gurigan in uu yahay gurigii dhibka loogu geystay. ayadoo ka labeenin ayaa guriga hortiisa waxa ku yaal meel yar oo risaalooyinka la dhigo
ama boostada oo boosta laakiinse meeshaan ma kaliya ma ka saacideyso sababtoo ah meeshaan qofkii wax keeno ayaa ku rido oo qof meeshaan taagan waxba ma ka faa'iidaayo ayadoo barteedii taagan gurigiina ay kor iyo hoos u fiirinayso ayaa bartaas waxaa soo maray xogaa oday oo shawaya muxtarama si oo muxtaram leh ayay odaygii meesha soo maray ku istaajisay ayadoo dhehayso adeer sidee tahay ma fiican tahay magaciiga hiblaya lahaa inkastoo markaas magaceeda inay u sheegtay in kale aan la xaqiijin karin laakiin ay ninkii adiga si erayo oo qurux badan kusoo jiidatay kadibna wuxuu ku tiri gurigan nin igu yiri aniga iskala ayaa soo doontay laakiinse anigu waxaan rabay maadaama aan ka ogolaaday anigana wax badan inaan ka ogaado ayaan iska jeclaystay ninka guriga iskala magaciisa waa Muraad bin Cusmaan wala wuxuu ii sheegay tiray in uu guriga asiga u weyn yahay aan weligiisna xaas soo marin laakiinse adeer waa iska ogtahay dhalinyarta ma la aamini karo ayagoo xaas leh ayaa dan wuxuu ku dhahay xaas ma liini kulay aniga waxaaba ku istaajiyay hadaa aqoon u leedahay faahfaahin yar magaciisa saddexaan iyo ina iga siisid ninka gurigaas iskale in lagu magacaabo Muraad bin Cusmaan خلاص هذا وحي هيستا ويلي وحو أسير راعيي غوريغان وحي إمادان مالمها قاسكا أو إي إسكا يعني دماشادا يعني إي وحي دقينهين ورسمي ودقين حافة هبل يقوري هبل إي رقم هبل تال هذا فراكة بحضي قبلنا يعني أضيع نحريس أيو أموجي وحانا سبب ونقطي أسلوب تأي كل هذا الشيء وحوال بو adig ay ka falmaan hadii adig kiiska iska waashid waxna ma helaysid laakiin hada waxay ogaatay gurigooda degan yahay magaciisa saddexan okay aan u soo laabano markay Faadumo booliiska u tagtay maxaa la yiri booliisku wuxuu ku yiri hal mid ayaan ku dhaqaaqi karnaa in nimanka ku kufsadeen magacyadooda saddexan ee keentid waxa kale oo loo sii raaciyay iyo gurigii lagu kufsaday bizabti in ay keentid maxaamiga markay u timidna wuxuu ku yiri rag ku kufsaday magacyadooda saddexaad ayaa loo baahan yahay meesha ay degan yihiin booliiskii iyo maxaamigii isku hadalay noqdeen laakiin ayada markaan waxay heshay ninkii ugu horeeyay iyo gurigii lagu kufsaday maxay kula tahay marka ma booliiskii ayay ku laabatay si ay Muraad kaligiis u soo sheegto ayadoo oon afartii kale magacyadooda heenin mise Faatmo way soo baxday gurigeedii ayay ku soo laabatay hadda way faraxsan tahay waxay haysataa gurigii dhibaatada loogu geystay way taqaana oo way tagi kartaa waxay haysataa magaciisa saddexan ee ninkii gurigaas iska lahaa ee gaariga ninkii iska lahaa hadda aad ay u faraxsan tahay waxay xiratay dharkii maalintii la soo kofsaday ama la soo dhibaatay ee wadatay ay dib u xiratay kadibna taxi ayay raacday si u sii socotayna gurigii ninka ayay tagtay ma iska tagtay no isla waqtigaas waxay ogaatay xili oo Muraad gurigiisii galay waxay xubsatay guriga hadda Muraad in uu ku jiro kadib jaraska ay ku garaacday jaraska markay ku garaacday waa loo soo istaagay waxa lagu yiri meen qofkee tahay adiga markii albaabka laga furay wuxuu ku tiri waxaan u baahanahay Muraad markuu u soo baxay wadniya istaagay qaana maxamed soo doontay ma ba aqaani maxay tahay naagtan maxay rabtaa wixii tiri kiiska ha iska waalin ma familkaagan kugu fadeexeeya mise si qaasa in aan meel u tagna u wada hadalna wali ha iloowinay tiri gurigii waan garanayaa guri ma tagnaa oo ma sheekeysana dad waaweyn oo kale meel wax ma u wada dhignaa Faatma iyo Muraad way is soo raaceen hadda hal kale ma haysto oo marbiyo in gurigooda iyo dadkooda la dhaho saan baa dhacday wuxuu yiri maxaan ka tali karnaa horta gurigiina geey markaas ayaan wada hadli doonaa kadib waxa dhacday in gurigi isku soo raaceen gurigi marka isku soo raaceen ayaa waxa dhacday Muraad ayaa la sheekaysatay wuxuu ku tiri dhibkan adig ayaa ii geystay oo mi guursanaysaa may ayuu ku yiri sideen ku guursadaa oo 5 nin aan ku kufsanay meel ay 4 nin kala sii martay yani ani maxaa waa uu yiri wax oo nabarka kaliya igu yaalo ani kaliya sababta ay soo ugaarsanaysid maxay tahay wuxuu ku tiri isdeji aan is guursano oo adiga ayaa dhibkan ii geystay may ku yiri ma ku guursanaaye mi guursanay Soomahan baqaaqi ku buufisay baqaaqi markay ku buufisay wuu suuxay markuu suuxay ayay xirxirtay inta uu suuxsanay qoftaan hubkeeda way wadataa xarigeediisa ka soo tagin baqaaqeeda ka soo tagin sakiinteedina ka soo tagin markaas soo naaxi yani wali waxay haysataa waqtiga uu ku soo naaxi lahaa iyo waxa soo dhan aqoon u leedahay ninka markii la xirxiray
xiray kadib ayuu soo naaxay wixii ku tiri hal xal ayaa haysataa inaan ku sii daayo hadaa rabtid 40 nin magacyadooda iyo meelaha aan ka helayo sababtoo ah kulligiin waxaan adiga waa idid inaa guursatay ayagana waxaan weydiisan doonaa kii ii berjilco i guursado kii yacni naxariis ii sameeyo oo i guursado ayaan saas darteed u raadsanaa marka afartooda ciwaanadooda inaa iska soo qortid adoon iswaalin haddii kale waxalkaa dhibka iigu geysatid aan kaa goynaa muraad wuu baqay nin walbo raqamkiisa magaciisa saddexan iyo gurigoo degan yahay iyo meeshuu u shaqo tago ayuu farta ka saaray kadibna bartii ayuu ku dishay ama qoorihii ayayba ka goysaybo kadibna gurigii derbiga ayay wixii dhiiggiisa ku qortay 1+5 way iska soo baxday ayadoo dareemayso farxad reen aan inaba caadi ahayn gurigeed may tagteenoo isla mashinkii ugu xiga ayay fulisay saaxiibkii labaad ama qofkii lagu xijiyo labaad ayaa waxaa lagu magacaabiyay Casmaan Iswiidi Casmaan asiga wuxuu u sheegay in saacadahan camal laga weyneenin suuq lagu magacaabo Calaal bin Cabdalla in uu saacadanba ku sugan yahay gabadhii markii suuqii ninka loogu sheegay ayay si qurux badan inay u soo labisatay ee waxay soo qaadatay boorsadaas ee ku wadato shaambo adiga lagu cadeysto iyo daawada lagu cadeysto ayadoo iska dhigayso waxyaabaha inay iibiso kadib waxay soo sameysatay sun adiga kiimikadiisa inooba caadi ahayn yacni ayada xataa waqti loo qabanayo kadib way soo baxday meeshii suuqi dhexdiisa ugu timid al markay xanaaqsantahay xuma suuqi ayabo inay falkeeda ku gudbisato ama yacni arimeeda ay ku fulisatay damacday kadibna way u timid 3 qofood ay soo ag istaagtay ayadoo iska dhigaysa alaabtan inay gadgadayso qofkii afraad asiga ayuu bahaabo awheelo markiis hore shaxaari oo iska ay gawar labisan oo qurux badan soo ag fadhiisatay maba uu si aqoonsaninbo jaa afka hala galo kan meeqawaay wuxuu isiri bitan hada bacdan dhanka gadatid adaab lahaanaysid camal ayadana intii meeshaas kaamira ku arkaysa iyo qofaa kuu jeedi iyo maba isku mashquulinine laakiin qof u dhawow oo daawada intay ku dareyso wuxuu cabaayay dhac oo siisay 2 dhibcood ay ka gaarsiisay wuxuu cabaay asigana intuu salaadeen ku mashquulsan yahay waa laga tagay meel agtiisa la fadhiistay koob shaahna waa lagu kor dalbaday asaa indhaha lagu haayaa marka awilo wixiisi markuu cabay casiirkiisi adiga dhadhankii maba uu fahmin miya adiga yacni meeshan xaqna uu shaqeynooyay awilo ha gabgabay xamaamka aad wuxuu isiray maxaa way xanuunkan kugu soo booday waa laga daw baxay ilaa dad badan ka daw galeenay iyada kaligeed ma ahanay dadkii maxaa kugu dhacay intay ku mashquulsan tahay ayay broset inay dambiishada ka soo bixisay ay wixii ku qortay 5 laga jaray 2 waan iska soo baxday yacni waxay hubsatay kan inuu soo noolaaneenin daawada ee siisay ayay yacni kalsooni ku qabtay waa iska soo baxday kiina bartii ayuu ku nafwaayay gurigeeda ayay tagtay maba because waxay og tahay in nimankan la soo ogaanayo waxay wacday kii saddexaad waxay isla markii telefoonka wacday Samiir markay wacday maba dhibin waxay ku tiri Allah aboo ma waxa tahay saaxiibkii Muraad markaas wuxuu ku yiri ha waa runta wuxuu ii sheegay saaxiibkiis u dhow in aad tahay isla xigaas waxa ay meeshi ka hubsatay geeridii Muraad in uu ninkan wili uusan ogaanin Muraad wili meedkiisa guriga ayuu ku xiran yahay markay taas ka hubsatay ay waxay ku tiri hadda ayaan balansanay inuu meeshan iga soo doono ani iyo gabar saaxiibaday laakiin wuu igu soo daahay waxaan xasuustay hore inuu raqamkayga igu yiri waa saaxiibkay koowaad hadda ani iweysid waa waca kartaa awheelo shaxaari maba uu soo daaheen wuxuu yiri haddaan ku imaana intee joogtaa meel waxay ku balamisay jabigiisa yacni iska degan kadibna waxay go'aansatay ninkan in ay meel dheer la tagin kadib uu u imaaday markuu imaad gaarigiisa ay shirka ka soo fadhiisatay agtiisa weli laakiinse wax dareen ninkan ma qabo oo ma cabsanooyo adiga inta gaariga la saarnay u sheekeysay ninkan damci gelisay awelo tiisa wadiyay baakim markaas oo u dhawaayo guri oo asi garanay looba galay wuxuu isdhahay qoftaan meeshan ku soo habeeso laakiin maxaa ka raacay ayadana way dareentay ninkan in oo meelo gaariga baakimo uu raadinayo laakiinse waa waxay rabtay kadib aw shaxaari gaariga markuu baakimtay babaqaaqisa dhakab luusi mar al markuu suuxinay carabka ay mindi ka gelisay
mindidaas ay carabka ugu sartay oo kaliya ma aysan ugu simine way soo degatay basiinka gaariga ayay furtay kadibna way ku holcisay wayna iskaaga tagtay laakiin dadkii xaafadda ayaa kusoo kala cararay oo isla markiiba dibkii ayaa laga damiyay isla Samiir waxaa lala cararay dhakhtarkii oo waqtigaas nafta ma aysan ka bixin kadib shurdadii gabadhii markay u tagtay kusoo xujiyay magac kan keena hadda waxay ogaadeen in arinta ay qasan tahay wiilna suuqa lagu dilay midna baakinka lagu dilay yacni dilkan oo xiriir leeyahay sababtoo ah isla derbi u dhawaa oo yacni isla bartii ee baakinka ugu soo baxday ayay waxay ku qortay 5 laga jaray 3 5 laga jaray 3 5 laga jaray 2 5 laga jaray 1 يعني بوليسكي وحي مركي وضع أركان هالكي أيال الرادي مادام إسدح إيه لبا قعنتو كودغان هالكي أيال الرادي هالكي مركي الرادي وابا لصوهي لايبو أسيغو لبا مالي ميلكم 100 سنة كدي وحال سورادي بلاس شان كي شانات أيال سو قبتي أيو رهايان نفسد داد هاليس أيو كجرتا أنا يان لكن كو إلالينينو وحوال بسي سحنو وشي gabadhii way ogaatay booliis inuu soo dhaqaaqay ee arintan galay kii shanaadna ayaga ugu hormareen oo gacanta ku dhigeen ee ayadka lagala hormaray kadib isla waqtigaas ay waxay diyaarsatay tikidkeeda iyo waxay go'aansatay in magaalada iskaaga baxdo balse intay sabixin ayay waxay warqad u qortay ninkii saldhiga haystay ayadoo dhahayso magaciigu waa Hiblaayo 3-4 nin aniga ayaa dilay kan shanaad ayaa iga badbaadisay aabi iga badbaadisay laakiin 1000 sano ha ka soo wareegato waa aan dilaa oo ma deenaayay haddana wadanka waa aan ka baxay oo waxaan joogaa saacadan kula hadlaayaba wadanka banaankiisa waxa ka bedeli kartid malahan inta booliiska ay warqadaas soo gaarin ayaa waxa la sii wareysnay kii shanaad waayo waxay qortay 5 dhibic calaam su'aal 5 dhibic calaam su'aal markay qortay booliiskiina ay kan wareysteen yaa ka shakisantiina markaas wuxuu ku yiri gabar aan kufsanay familkeeda intee famida ayada leebo jaftay kadib ayagoo inay familkeeda raadiyaan ama dadkii oo ka dambeeyay dirirkan la raadiyo ayaa warqadaas soo dhacday warqadaas markay soo dhacday ay booliiskana ogaadeen waxay kale soo xasuustay maalintii gabar uu iimaanaysay una diray nimanka magacyadooda adreesyadooda iyo gurigii ayadoo waxba aqoonin magaalada xataa ku cusub laakiinse isna maxaamigii asigana sidoo kale ayadoo u hanjabayso dhaheysane boqolaal gabar oo dhibkan qaba ayaa arintan la aamusan inikana inaad ku xujeyseen inay magac keenaan magacna markay keeni waayeen laga yaabaa qaarkood in ay nafsadooda dileen laga yaabaa qaarkood in ay uur yeesheen ee uurkaasna haddana aan wax aaba u heenin shantaan nin waa 5 mar walba dumarka ugaarsado ayagana waa la ugaarsaday kadibna gabadhii banaankeedii ay iska tagtay waxay noqotay mid aan ba cabsan Faatmo meesha markii la joogo ma la dhihi karaa waxa ay noqotay mid xaqeeda gacanteeda ku soo dhacsato ayadoo waxna booliis iyo waxba qof aysan kala tashan hatta familkeeda bay soo u sheegin dhibaatada ku dhacday iyo wax ay sameynayso ee waxay noqotay mid isku filan kaligeeda tan ayaan jeclaystay hada hore ila joogto oo kuma santaa joogitaankaaga haddaad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelkaaga subscribe dheh furo baleelka si uu ku dhaafin wax walba ay ziyo soo dhito walaasha ziyo kula dunidu waa wax yar ee gaaban is xisaabi inta aan lagu xisaabin ka hor bye